أنت حربنا كهذا وحير أو قصة وقصاب سن ظلمك شاعرك وحده لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم عاقبته ندما تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم ورهوي وحد ظلمنا ظلمك آخر سوا شلاي إن هذا يهردان بردا كدرجيسا أضو الظالم وقفك للظلميين ما تودن إلهي كوبر يا أمو كهبارا يا قصيرة هرت الربع إنهم كبلابو أو أنا كان على كل ماي بعدين محربة إنهم كسو حجيو إنه تانير عمش الصوص عراي سبحان الله أنا الصومال هدان هاي دد وحنا هاي ظلمي من راسنا إلى رجلنا أو نقول ركبا دد ظالمين إحنا وبضلنا هاي ظالمين مستري الصومال هدان هاي ظالمين أو بضلنا عند تسير أو لحد السنة جرتو أو ننكي حوجي أو حلبان أما دد ومدحي وياهي والصومال من الجاسمية dadka Soomaali la dhaho dadka hadda xukumaan dadkan hadda dhahno nacaladi ha ku dagdo nacaladaas way ku dageysay maxaan nahay anaga ay nooc min albashar anahay المهم تعب وانا قدارسين وبحنا او هدا ربنا إنا هذا الوبحنا لكن dadka social media ku jiro oo dhan waxa leeyahay gabadhan qadiyadeeda laga hadlo cunugta yar way dhimatay ilaahay u naxariisto intaas oo qorneed in kasto qabiil lagu abiyusay ظالمك indhihiisa hurdo ka dhargaya laakiin dadku waxay mudan inuu hurdo laakiin uu isdhabarinaya dad badan oo daalimiin shalaaya ku dhex jiraan maalinta qiyaamana ilaahay ha cadaabo aakhirna nacalad raaskooda Allah ka dhigo xukaamta anagana xukumo xukaan ma ahane ama madaxda anagana xukumo madax ma ahane ama xasan sheekh ha noqdo ama dani ha noqdo ama mid kasto gobol haysta ha noqdo way ka shalaynayaan qasman cadaman way ka shalaynayaan qasayara raba horta koo inaan soo qaad cunugtaas qisadeeda hada ka hor mar hada waxa u maleynaya 6 sano laga soo wareegay dad carab oo hore aan markaan yaray ugu shaqeynay aad turjubaan iyo wacdeen gabar yar oo indha yar oo la keenay wal og yahay waxa lagu sameeyay gabadha laakiin aniga mutarjim leeli iyo wacday cidana aad isku fiicneen المهم عيدي waa maray waa la ii wacay waxa la dhahay hadhowna soo marxay waa soo maray gabadha la dhahay turjubaan gabadh markaan qorka la galay oo weydiiyay af ingiriiski ku hadlaysay korkeeda ay tusasay ninka guriga leega wacaayo dumaashiyay u yihiin cidaas gabadha la dhalatay naagta uu qaba idahaysa fiiri weydii maxay rabtaa qof la soo xumeeyay oo la bahdilay oo ninkii isku day inuu xoogo wax igama qaadanay leedahay laakiin way dhaawacan tahay korka way ka dhaawacan tahay ajirada way ka dhaawacan tahay anda way ka dhaawacan tahay markaan wareystay waxay dhahdeen ninkaas isku dayay inuu xoogo subhanallah ninkaas marra waa itneen uu sameeyay yani ninkaas qisadiisa waxa maanta meesha ugu soo daraa inuu dulmiga caaqibadiisa nadam uu noqonaaya shalay ninkii hadaraad soo arkay videoga cunugtaana waa lagu soo sheer gareynay waa ka daalay dulmiga Soomaaliya markaan rabo inaan ka sheekeeyo caloosha ay xanuunto meelaha nabara aan soo xasuustaa oo maxaa la dhahaa problemka Soomaaliya lagu haayo Farxan Faashiin oo ah walaalkii sida aragtay inaan loogu galay magaalka ay oo hamasa garowe haddana gabadhan saas oo kale waxa kulli waa goboladaas gaalka ay inay tahay inay garowe tahay ma aqaano hooyadeed la dhahayo waa arkay video daahir calis uu ka hadlay wareysanayo oo la dhahayo maxaa la dhahaa hooyada xataa waa la xaray waa la afqabtay war intee garaysid idinka social media ku jiro oo dadka si fiican ugu baroordiiqaynin iyo inta xuno dhan la hadlaaya iyo waxa la hadlaa dadka madaxa ku sheegto oo nacalada ku degtay biidnillah maalinta qiyaamiye adduunyo aakhiraba ilaahay adduunyadan ha ku cariiri aakhirana meeshii yareed oo iyo dhirarkooda iyo balaarkooda isla ekaayna la wada war wallahi man la yaqafa fi dunya akhafahu allah yawm alqiyamah qofkan adduunyo ku cabsan aakhira lagu cabsiinaya waxa kale oo raba inaan ka hadlo naxariis darrada ku geynayso cunug 6 sano 7 sano xataa 15 sano hadii jirto oo xoog waxa ka qaadaysa xitaa ninka waxa sameeyna aqli ma lahan miya ma cabsan yahay ma wuxuu isticmaalaa gabadhan aan meesha soo saarayo wallahi maalintii markay ka sheekeynaysaa oo maleynaa nin cadaan qaba gabadhan maasha Allah aad u baroor diiqad xataa way ooynaysay ay dhahaysay ninkan hadda xataa ani ugu cid yahay xataa am oo tolkeyga yahay xataa maxaa la dhahaa ma ku shujucinayo marka ninka carabka sheekadiisa u soo noqdo wallahi bilaa dad badan oo baroor diiqeen way jirtaa laakiin Soomaaliya nadamaan oo dambeeyo
كان ظالمك كان مظلومك عقوبة ولا سكين عقوبة سينويا إليها نوسو قرقاري والله قبيل أهان أما إني قبل جرير تهي أهان ما كوضو لكن عقوبة ليسكا قالويا انتي أدنا ودنا أدنا ونقولنا ما هاينو حسن شيخ واكاس داني واكاس ومدي والا لاينا يا تيلقو بحق لو ما قادايو بل قدال أوصو نقضي قصدي نينكي أساق هاي أو نينكاس لابا جيرا قصدي سكسو ترجمي nin faa'iido lah ma ahayn xooga iyo intuu la ekaa baawarka iyo wadankiisa inuu joogo iyo waqtigii gabdhaha shaqaalayaasha la dulminayo way hadda ma ahan waa muddo 6 sano meelahaas taqriiban 6 sano way dhan tahay ninkaas inta laakiin ani qisadiisaas wallahi ninkaas dhowr jeer ka soo turjubaanay dhowr gabdho uu xumeeyay waa arkay cidaas aad cida guriga oo dumaashiga uu ku yahay ama seediga looga yahay aan tagi jir gabdhaha meeshan ku arki jiray lana gabadhooda weyn uu qabaa shaqaalayaasha markay meesha keenta badana meesha ku arki jiray tii anigoo aragto inaan asmar ahay waqtigaas maxaa la dhahaa ama qof maariin aan ahaa afrikaan xigeeni to Ethiopian qisadiis maray igaga sheekaysan laba indha yarna waa ka soo turjubaan waryaa warka idinku badanina dulmi Soomaaliya ku soo daashay ka Soomaaliya maxay tahay uqubada ma noo soo degdegta anaga dadkan tuugada oo balaayada oo Soomaaliya xukuman uqub u soo degta carabta iyo uqubada u soo degdegta leesh ninkan markaa arkay ninkii oo meel la iska tuuray oo qanax amal waa ninkii dadka dilaayay oo naagi xoogayay oo adduunyo baawar sheeganayay oo ciidan baladka u dhashay wallahi ninkii waxa arkay gaari lagu ku dhax jiro meel iska rafaadsan xanuunada laga sheegay maad sadiki raaskaad ma galaya ku dhahay uquba ma fiicnaa Soomaaliya ma uquba la iska dhaafo Soomaaliya maxay uqubada ku soo degdegi laadahay عقوبة محي Soomaalida ugu soo degdegay la carabta maxay عقوبada ugu soo degdegtaa المهم ninkii waxa arkay isku balaq isku noqday halaha cudur laga sheegay waa yaabe ani meel ay xanuunaysa asaga xaqiisa meel ay xanuunaysa ana dadkaas ugu jinsiye ma ahaan qisada uu ku sameeyay laakiin dad oo isla wadan qurbo isla imaanayaan isla duruufaysan oo wadan islaameed keentayaan يعني ninkaas qisadiisa meel ay kaga taale tolow aan dhigi jiray tolowdii doraadtii ka horeysa soo arko waa isku naxay markaa ninkii ark ninkii xooga weynaa shafka weynaa gabdhaha masaakiinta ee bahdalay gabdhahaas markay ajiradoodii iyo korkoodii ii fiideen haday Soomaali ahaan lahayn waxa laga yaabaa maalintaas in aan dagaal gali lahay turjumaan kale ii wacdo wallahi wa billahi wa tallahi xooga u sheegtay laakiin ilaahay dadka ka xoog badan yaa gabayaaga wuxuu leeyahay tanaamu aynaaka والمظلوم منتبها إن هذا يهرد لكن نينك للدلمية مهردو وسوجي ذا إلهي مهرد مجمع يوضع يسوم على هذا والله إن ظلمي وسودك تجا أمتان حراش يقدرين مياه أنا حارات يقدرين مياه Soomaaliya dadkan dadka dulminayaan caladaha idin ku degato oo caladaha idin ku degato oo ila abad adduunyo ilaahay haydan fadeexay sida ilmaha saqiirada banaanka u keentan hooyadood ay social media ula soo fariisatay inay u tuugsato cunug yar oo 6 jir 7 jir inaad la isku furo oo indhaha laga fiiriyo oo qabiil ahaan loo abuse gareeyo war waana la rogay goormee la rogi doona Soomaaliya dhulkan nan laqi doonay goormee waay maalintaas Soomaaliya dhan ya min raas caseer ila raas Kamboni ila meeshay noqotaba Soomaaliya mar una dhulka laqi doona goormee waay Ilaahay noo soo dadajiyay habarkaas war inta xun inta fiican Soomaaliya inta xuna badan ma Ilaahay laga cabsado ma umadaan oo kale loo bararo diiqo inuu ilmaha saqiirada la kulay ma laga hadlo maxay tahay bari dhaxdaas ahayd qisa aan ka soo hadlo ninka Masriga cunuga faraxumee wallahi اسبوعين wala soo qabtay يعني واحدو وحكم حوغا شويه حتى مصر وين دانتا شويات و20 شويات اينا دانتا تعلمين تان توغدا oo kale to anaga xukuma maahan عليكم اللعنه الهي على الله idinku soo dajiyo والله Soomaali dadka xukuma muslim ma ahan hada u dhaaran oo wallahi wa billahi wa tallahi ilaahay man ugu ciqaaba muslimnimadeena inaas qiirada fuulno oo umada abuse gareyno oo dadka aan xoog u sheegana miya wallahi ninkaas aqaana wala soo laalaabay 6 sano ya ninkii caafimaadka qabo shafka weynaa oo masaakiinta oo wadankooda baahi aga imaato shaqo soo raasatay burburun jiro oo wuxuu raba ka sameeysan jiray gaari ku soo aruuray ninkan ilaahay na soo aruuriyo إلهي إن صاروري اللهم آمين يا رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وأنا دبتين صومالي نمتين مسلم نمتين إلهي أنا كين قبطه